dimuqraadiyadu ay tahay qor isku dhiib waxaan runtii ku faraxsanahay in aan soo dhaweeyo kuna wareejiyo xilka ra'iisul wasaare jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamza Cabdi Barre. waxaan hubaa in ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu u gudan doono mas'uuliyadiisa si hufan oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ku diirsadaan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo. waxaan mahadnaq ballaaran u gudbinayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii fursad ii siiyey inaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed u adeego muddo ku dhow 2 sanadood. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, golahayga wasiirada, ciidamada qalabka sida, howlwadeennada xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo shaqaalaha hay'adaha dowladda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed taageeradii iyo dhiirigelintii ay goor kasta ila garab joogeen muddadii aan waddanka u soo adeegayay. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa golahayga wasiirada oo runtii muujiyey dhabar adeeg iyo dulqaad xilliyadii adkaa ee uu dalku soo maray, kuna guulaysteen in ay waajibaadkooda shaqo ee ay u hayeen shacabka Soomaaliyeed u guteen si hufan oo sharaf ku dheehan tahay. sababtoo ah hadday caqabada ila imaan lahaayeen hawsha aan dalku u hayay siiba doorashada ma aysan hirgeleen. waxaa kaloo mudan in aan xuso mahadcelin ballaaran u jeediyo guddiyadii doorashooyinka ee heerarka kala duwan lahaa dadaalkii iyo dulqaadkii ay muujiyeen xilligii lagu guda jiray doorashada, taasoo keentay in doorashooyinka dalka si nabad ah ay ku soo idlaadaan. xafiiska ra'iisul wasaaraha, golaha wasiirada iyo dhammaan hay'adaha kale ee dowladda wuxuu waajibaadkoodu koowaad ahaa muddadii aan ra'iisul wasaaraha ahaa hagidda iyo hirgelinta doorashada dalka si nabad ah ugu qabsoonta. runtii inkastoo caqabado iyo khilaafaad siyaasadeed yimaadeen, haddana Allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu guulaysiiyey in aan ka gudubno marxaladihii adkaa, xaqiijinana doorasho dalka ka dhacdo iyo isbeddel si nabad ah ku yimaado, taasoo suuragelisay xilwareejinta aan maanta u fadhino. sidoo kale xukuumaddeedu waxay ku guulaysatay in ay joogtayso adeega bulshada iyo dib u habeynta hay'adaha dowladda ee socday sida dayn cafiska iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida iyo hay'adaha dowladda. barnaamijka xukuumaddeedu waxaa aasaas u ahaa geedi socodka iyo hufnaanta dowladnimada. xukuumaddeedu waxay diiradda saartay howlaha muhiimka u ah geedi socodka dowladnimada sida sugidda amniga, xoojinta dimuqraadiyadda, qabashada doorashada si nabad ah